صحابي كمد الصحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام marka aynu ka warranno jiilkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyeeyey ama uu kobciyey waa jiil taariikhda ama waa facda taariikhda bashariyada ama bini aadamka dhammaanteeda caan ku ah oo runtii aan dib u soo noqon doonin waayo waxaynu odhan karnaa waa da uu rabeeyey oo tababaray shaqsigii dunida tan ugu weynaa oo ah nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ودا أرضي وهيد نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا دا رنتي إن بدنو كم ديجو ددوا وين إسلامين سحابي كان مركا درس كان لوجو طلق علينا كجو الرماء بذر مجي عيسى جندب ابن جنادة يا ابن جنادة لبض والله هذا وأن غفار قبيل كالله هذا كترسن وكنا بني كنانة كتيرة دوبهان تاريخ دي سوحي نوران كرنا سيدا إمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء وكسا أرورين يوحليه هاي هو أحد السابقين الأولين وكوحدي هراء إسلام تي سابقين تالله يقانه إسلام كوسو دكتي أيو كمدي هاي وانا كوي وذك سنة ما وعقل بعض الناس صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام علمي يا أقونا وحو قارين فتواضه خلافة دي أبي بكر يا عمر يا عثمان به مفتين توحلويدية فتواضه يكمدها وحكى له عام كواها يلا إذا وحاها وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم بالعمل وحاها mid madax ku ah xagga dhowrsanaanta iyo zuhdiga waraca dunida iyo waxa yaala uu ka fogaado aakhiro qof u go'ay ah run sheega iyo inuu ku camal falo cilmiga u dhaqan galiyo wuxuu ku sifaynayaa inuu ahaa qawaalan bilxaq laa ta'khudhu fi llahi lawmatu laa'im calaa xiddatin fiih waxaa buu leeyahay mid xaqa si dhaba ugu dhawaaqa aan cidna ka cabsan ama ka haybaysan masalada xaq ee uu rumaysan yahay iyadoo weliba adeegna uu la jira buu leeyahay xidda buu lahaa xooga kulayla ayuu lahaa saxaabiga kani markaynu saxaabiga kan si dulmara u tilmaamno waxaynu u qaybin doonaa taariikhdiisa aynu ka warramayno dhowr qaybood inagoo risaala uu qoray imaam ibnu baadiis من أئمة الجزائر سوق هذا يا الرسائل علماء كلام قرآن وقهرين الإسلام نمدي سهدين وكورنه أبو ذر الغفاري وحكم ده هادت كي هرو إسلامي إن تاريخي هندا قاركودا يكت المام يامبا دت كي وجوه الرئي إسلامي إن كستو أهل السير كالرقبة وكم ده إليين أفر شنطة هراء سيدا وحادثة قارشيغيان ما أها وانتي معلومة ويسوي كهيون وكدن بيي إسلام نمدي سمرك إنه يقنو لبا حديث بوع عنصن وقصة أروري حديث إمام البخاري مسلم باو دوريه ومتفق عليه حديثنا إمام مسلم يا إماذا كلا أهل السنن كقار كمده أي سواء أروريي لبدا حديث أما لبدا الروايات زيادات ما وحبيس دير ميلا قاركودنا واسكو خلاف سيهين ولذلك بقى أي مدى قاركود المامان بحطا إن لجمعية إن يادكتهي وباب ترجيح أي مران إن الرواية دا إمام البخاري مسلم ورنا يانا حوتيان أي مدى قاركودنا إليين ولا جمعين كرا هذا بقى وحينو إنه اسكو دينا إنه متفق عليه قادنه تكلنا وحيابا قاركود كتل تلمامنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه صحابي قال لي هذا مالين فردية مجلس كيسي أبو جمرة وحليه هاي يدا مجلس قال فردية بوحو عبد الله يري ألا أخبركم بإسلام أبي ذر ورما إذن كور رما أبو ذر يسدو إسلامي إسلام نمدي أبو ذر قصة ما يدين شيئا وقصة شيقة رمتي دبيتنا وحلا يدي هاي نوغا ورر دبيتنا ابن عباس باوحو لي أبي ذر باوحو يري كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي
waxaan ahaa buu leeyahay nin ka tirsan qabiilka khifaar la yidhaahdo khifaar waa qabiil dega markaa maka xaggeedan waqooyi soo xigta waxay degaan waddada shaam iyo maka u dhaxaysa waa qabiil ku caan ahaan jiray xoolo dhaca iyo qutaacu ariiqnimada dadkii qabla alislaam ama nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aan ilaahay soo dirin way soo xaj tegi jireen dadku waa waxyaabihii xajku ka hadhay diintii nebi ibraahim ka tegey marka waa la soo xaj tegi jiray khifaar dadka boobo oo dhaca ama baad ka qaada bay ku caan ahaayeen reer maka ama qurayshina qolyahay iska muslixi jireen ee waddadooda rixlatu shitaa'i waa sayfka uu mari jiray bay ka mid ahaayeen abidar asliyan wuxuu ka mid ahaa baa la yidhahaa xunafadii xunafadu waa dadkii xaniifiinta ahaa ee qabla nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan diintiisu soo gaadhinba asnaamtan iyo waxaa nacaya towxiid raadiska ahaa waayo riwaayadda imaamu muslim uu sheegayo iyadu waxay sheegaysaaba inuu tolkii ka guuray sababtu uga guurayna ay ahayd asharulxurumka inay bannaysteen oo ixtiraami waayeen dabeetana intuu ka guuray isaga iyo walaalkii unays nin gabyaayo ay walaalahaayeen iyo hooyadii intay israaceen waxoogaa xoolo ay wateenna kaxaysteen reer abtigood inay u tageen oo abtigii la degeen waxaa kaloo uu caan ku ahaa uu sheegayaa sida riwaayadda imaamu muslim ay tilmaamayso inuu xataa tukan jiray oo markii la yidhi hoos aad u tukan jirtay wuxuu yidhi habeenkii asnaamtan iyo waxaan markuu gartay inaanay xaq ahayn ilaaha waaxidkii inuu jiro intaan iska kaca buu yidhi ayaan salaad iska tukan jiray oo wadi jiray uun ilaa iyo marka dambe aan daalo sida khifaag waa kisaaga waa marada yar la huwado kale sidii mara yar aan meelun ku dhaco oo cadceedda kuleylkeedu ay kiciso markaasaa ninkii uu wax weydiinayay wuxuu ku yidhi oo xaggaad u jeesan jirtay markaad salaadda tukanaysay markaasuu yidhi meeshii alla ii jeediyaa un baan u jeesan jiray anuu qiblo gaara ma lahayne halkii alla ii jeediya un intaan isaga jeesto ayuun baan rabbi subxaanahu wa tacaala caabudi jiro tukan jiray war baa soo gaadhay isagoo awalba ninkaa asnaamta necab iyo waxaasi oo dhan ahaabaa war soo gaadhay sheegaya inuu nebi ka soo baxay magaalada maka ah dabeetana wuxuu damcay inuu nebigaasi akhbaartiisa iyo warkiisa raadiyo walaalkii oo ama soo socda ama isagu soo diray ayaa maka yimi dabeetana walaalkii fariin buu soo farayaa war bal ninka soo baxay ee cusub warkiisa baan kaa rabaa inaad ii soo sheegto aad ii keento walaalkii warkii buu dhegaystay ninkii warkii uu sheegayey waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninka la sheegayaa warkii laga sheegay iyo wixii buu soo dhegedhegeeyey wuu soo noqday ii warran buu ku yidhi marka wuxuu yidhi ku warramay ee waxaan soo arkay nin akhlaaqda fiican dadka ugu yeedhaya oo hadal leh aan hadalkiisu kii kaahiniinta iyo sixiroolayaashu waxay sheegi jireen wax u eg maaha dee gabaygana isagaaba gabaya ahaa unays oo ay walaalayiin abidar gabayaabuu ahaa gabayna waan ku eegay gabayadii la tirin jirayoo warkuu sheegayaana war gabay u eg maaha riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu yidhi nin kuu eeg baan soo arkay ahlu xaq way ishabahaan dee abidar sanam iyo waxaa la caabuday oo dhan uu iskaga tago rabbigii unbuu caabudayey markaa wuxuu ku leeyahay walaalkii unays baa wuxuu leeyahay nin kuu eeg oo sidaada sanamadii iyo waxaasoo dhan iskaga tegey ayaan soo arkay buu leeyahay markii uu u sheegay wixii uu ka soo arkay abidar walaalkii wuxuu ugu warramay abidar kuma qancin wuxuu ugu jawaabay maa shafaytani imaad qancinin buu leeyahay wixii laabtayda gubayey si fiican igumaad warramin ee waxaan u baahnahay buu leeyahay inaan anna tago ee bal reeraha ku sii filow anna waa tegayaaye abidar qarbadkiisa yaree biyaha iyo ushiisa iyo sahaydiisii yarayd buu iska soo qaatay wuu soo baxay wuxuu yimi magaaladii maka ahayd magaaladii maka markuu yimi cid wax ma weydiinin waayo wuxuu ka baqay ayuu leeyahay ibnu xajar markuu sharxayo su-aashaasi in cidda uu weydiinayaa nebigiiba ay u tilmaami weydo ay ambiyaan ama ay run u sheegi waayaan
ama isagaba quraysh dhibi ka soo gaadho ama wax kastoo dhici kara buu ka cabsaday saxiixu muslimka isaga riwaayadda ku taalla waxay tilmaamaysaa fastadcaftu aw fatadaacaftu mid baan tunjaleecsaday buu yidhi waxaan sidhi buu yidhi kaasaa kolle iska liito oo dee iska miskiin aan waxba mala balaaya kaa soo garhayna wax weydii markaan idhi war ninkaa ma garanaysaana asaabi baabuu ku qayliyey buu yidhi waaba lay tubay buu tilmaamaysaa riwaayadda saxiixu muslimku calaa kullin abidar wuxuu yimi maka waa raaraadciyey nebigii inuu helo mase helinin ma garannin meeshiisii buu isaga hoyday cali ibnu abi aalib baa u yimi isagoo masaajidkiisa fadhiya dabeetana wuxuu ku yidhi war ninka kan ama ana lirajul wuxuu arkay inuu ninkani dee qariib yahay dabeetana wuxuu ku yidhi war ina keen ninka kan kaana rajula gariibun buu ku yidhi waxaan u malaynayaa inaad nin gariiba tahay markaasuu yidhi haa dabeetana wuxuu yidhi fantaliq ilay aniga iraac oo manzilka guriga anigu aan ku diyaafo geeya yacni nin qariiba oo masaajidka iska fadhiyo arkay cali ibnu abi aalib dabeetana wuxuu yidhi war aan ku martigeliyeyna keen wuu raacay abidar wuxuu leeyahay cali wax dambaysana ima weydiinin anna waxba uma sheegin habeenkii baa la marti sooray waagii baa bariyey waa ka yimi masaajidkiisii buu iska yimi fiidkii dambe goor dambe habeenkii dambe unbuu soo maray cali meeshii haddana mise ninkiiba wuu fadhiyaa meeshii dabeetana wuxuu ku yidhi amaa ana lirajuli an yaclama manzilah war ninku weli miyaanu gurigiisii garannin dabeetana wuxuu yidhi balina keen habeenkii labaadna wuu kaxeeyey wuu marti sooray habeenkii labaadna martisoorkaas buu leeyay isna wax ima weydiinin anna waxba uma sheegin cunadiisii buu iska cunay dabeetana wuu ka yimi habeen saddexaadkii ayuu soo maray cali ibnu abi aalib meeshii dabeetana wuxuu arkay ninkii oo fadhiya haddana harbalina keen buu yidhi wuu soo kaxeeyey ninkan qariibkiiyo masaajidkuu iska joogay aan waxbana cidna weydiinaynin habeenkii saddexaad dee imka laysyaro barayoo laba habeenoo horena waa la wada joogay ayuu cali wuxuu ku yidhi alaa tuxaditanii ma aladii aqdamaka ilaa hada albalad ama maa amruk ama wamaa aqdamaka hadihi albalda riwaayaad kala gedisan war maad ii warrantid maxaa ku keenay waddanka kan maxaad raadcaynaysa maxaa kaa lumay abidar wuxuu yidhi haddii aad ballan ii gasho haddaad ballan ii qaaddo inaad i tusayso waxa aan doonayo ayuun baan wax kaaga sheegayaa oo aad weliba warkaygaa ii qarinayso cali wuxuu yidhi ballankaan kula gelayaa inaan kuna qariyo wixii aan kugu caawin kara ee tala-ana aan kuu sheego ballankaa baan kula gelayaa markii uu sidaa yeelay buu u sheegay markaa wuxuu leeyahay warkaa caynkaasaan maqla ninka caynkaasaan baadi doonayaa inaan arko dee ma ii geyn karaysaa waa ciddii la weydiin lahaa baad u timi buu yidhi waad dariiqii sax ahaa waad heshay ina keen buu yidhi anigaad i raacaysaa buu yidhi waa ku kaxaynaya haddii wax laga shakiyo aan arko waxaan iska dhigayaa sidii nin biyo qubaya riwaayad kalena waxay leedahay wax laga shakiya haddii aan arko waxaan iska dhigayaa sidii nin kabaha tolanayo ka go'day oo kaleo kabaha hagaajisanaya ibnu xajarna wuxuu leeyahay labada masaleba inuu ku yidhi baa laga yaabaa oo uu yidhaahdo war haddii aan shakiyo waxaan iska dhigayaa ninuun ama kabaha tolanaya ama biyo qubaya haddaad aragtuun anigoo ismashmashquuliyey ha igu soo weecanay dhinac maruun iska socodkaaga wado waxaa meesha ka muuqata inay ahayd wakhti hore oo dadka muslimiinta la dhibayey oo qofku aanu islaamnimadiisa caddaysan karaynin oo nebi maxamed wuxuu u yimaado calayhi salaatu wasalaam mushkiladii ku dhacaysay oo xadka ay gaadhsiisan tahay xataa uu cali rabo abidar inaan la ogaanin inuu ku socdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
ومركا أولي هي هدي قريجي النبي محمد الله يرى إلى لنا يا إنه كسر بيجنه وأرنكو النقطة إن الشكية ويصير هذا والله يدين فهمي فرسمة أصلاً سمينا يا يدين عمرنا هذا سعد كاجا هتشوز جنين لبنان هو السعودية إننا مغني أبي درواية هي بيري سيدي بالله يسقط دبق علي علي به الرية أبي درنا ودبا صعدا نبي عليه الصلاة والسلام بقرقي سيلة تجي مركي اللو يمي أيو النبي عليه الصلاة والسلام الرنكيسي وشاكت دبعتنا النبي قوى الله هضل مركي الله وضع هضلينا إسلام كيبو النبي وصو بندقة تاني كان يدان مركا لغا يغا أول بموحد بوسكاها نبي محمد بانو هينيني دي أصنام تلعابدو إيا وحاسي مركا هربا نيكا تغيبوها دين حقا نبادي دون كيدا بوها نيكا أوسو لغاية ريره دي وغيمي إن نبي صوبحي نبي رادس كابوها دبعتنا مركو النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصو بندقة سف ضدبو مركيبا إسلام نمديسي وقات كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام وحسية رأي ارجع إلى قومك طلق أدب وقنقو وأورا ودعوة يدينك قارسيه وهدي مركا أي كسو قاردو إن أن صوب بحني وأنه عدو غيغا كحو غيساني مركاسي إيكالي يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطط كيس الدعوة وحكم دها ضدك مسلمين تيان قريش كدلنين انت يمادان إسلامه مركاسي وقع بسقبه إن الله يعمل الدلاء ما الله ديبه إنه لها إسلام نمدي نقاط وقرصده كل نقطة مالهني ومركا مقاشانو نقول يستي مركا إيكاليا أبي ذر مركا النبي عليه الصلاة والسلام اسكن نقو tolkaa ku noqo diinta iyo dacwadda u sheeg marka aad maqashay inaan guulaystay ii kaalay riwaayaadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan inuu u sheegay in dhul timir leh uu u hijroon doono markaas inuu yimaado abi dar wuxuu ballan qaaday markaasi waa noqonayaa buu yidhi laakiin quraysh ka tegi maaye buu yidhi anigoon dhegteeda tawxiidka maqashinin dabeetana waa iska soo baxay nabi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska tagoo reerkiinnii qabo abi dar nin wuxuu rumaysan yahay qarsan karaba ma aha waa nin wuxuu rumaysan yahay banka ay ka yaalleen saadiqu lahja ah wuu soo baxay naadigii quraysheed halkay fadhiyeen buu yimi iyo masaajidkii dabeetana wuxuu ku dhuftay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah buu ku dhawaaqa waxa la yidhi warsaabiga kan diinka baxaha kani kan diintii ka baxay ee muxuu ahaayo waxa lagu boobay laf iyo dhagax iyo wixii la helayay baa lagu boobay waa la tumay isagoo aad loo tumayo tamar yariba ay sii hayso ayaa cabbaas ku soo baxay cabbaas ibnu cabdilmutalib baa gartay markaasuu wuxuu yidhi waryaadhe ninkaa dilaysaan waa ghafaar waa nin reer bani khifaara waar hooye tijaaradiinni xaggaydin marin nimanka gaaleed inta badan mantaqa economiga bay ku fakeraan wuxuu intuu tijaaradaada ama lacagtaada ama xoolahaaga intuu yeelayaa intaanu see yeelaynin waa inta badan masale maadiyo xisaabtana lacagta maxay kordhaysa maxaa hoos u dhacaysa cabbaas ma odhanin ninkani xaq buu sheegayaa iska daaya iyo war ninka martida maxaa u dilaysaaniye mantiqi iyagu fahmayeen buu kula hadlay dabeetana wuxuu leeyahay war ninka kani waa nin reer bani khifaara tijaaradiinni xaggay mari markaasaa gacanta layga qaaday buu yidhi abidar alkhifaariy waayo nin khifaar bani khifaar u dhashay iyagoo awalba sidooda qutaacu turuq u ahaa haddana nin baa laydinka dilo maka laydinkaga dilay haddii la yidhaahdo dee safarkii shaam wuu go'ayaa markaa oo ma jirayso safar dambe oo quraysh leeday oo shaam wuu kacayaa markaasaa gacanta layga qaaday buu yidhi abidar intii kumuu joogine waa soo noqday haddana maalintii dambe haddana shahaada halkii kaga dhawaaqa waa lagu boobay haddana nabarka ilaahay haddana cabbaaskii buu u bixiyo ku soo baxay warkii war u eeg buu haddana sheego wuxuu uhi war ninkana isku garaacaysaan
waa nin nimanka bani khifaar ka dhashay war gacantiina ka daasta iyana gacantay ka qaadeen wuu noqday marka wuxuu qabtay waddankiisii buu ku noqday waddankiisii markuu tegey walaalkii ayuu u sharxay diintii walaalkii warran buu yidhi wuxuu yidhi waan islaam nebigiina waan la kulmay waa kaasi arrinku dee hadda waxaan kaa rabaa inaad diinta soo gasho walaalkiina waa islaama hooyadii buu u tegey hooyadiina diintii buu u sharxay hooyadiina waa islaamta tolkii nimankii khifaariyiinta ahaa ayuu la hadla iyana islaamnimadu u sharxay tolkii laba qaybood bay noqdeen qola waa islaamta qolana waxay yidhaahdeen mar hadduu nebigu ku yidhi waan soo baxayaa markaad xoogaysta ii kaalay dee markuu xoogaystaa baanu islaamaynaa bay yidhahdeen intaa u nugu sin nus iyagu markiiba way islaameenoo way raaceen nuskii kalena waxay yidhaahdeen aanu kula eegno markuu soo baxee xoogaysto markaasaanu anana raacaynaa sidii buu abidar islaamnimada ku soo galay isaga iyo walaalkii iyo hooyadii iyo tolkii nus ka midi nuskii kalena markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo hijrooday ayay iyana islaameen iyo weliba qabiil kaloo ilmaadeer ahaayeenoo aslam la yidhaahdo iyana waxay dhahdeen mar haddii ilmaadeerayada islaameen waxay ku go-aan baanu ku go-onaayo annana waa qaadanay diinta labadii qabiilba way soo islaameen markaasi abidar keligii baa ilaahay gacantiisa wuxuu ku soo islaamiyey laba qabiiloo carbeed oo midna khifaar la yidhaahdo midna aslam la yidhaahdo khifaarun gafara allaahu laha waatuu nebi moxamed lah calayhi salaatu wasalaam reer khifaar ilaahay dembigooda ha dhaafo wa aslam saalamaha allah waatuu nebigu ku ducaynaya calayhi salaatu wasalaam qisadatan cumuuman markaynu eegno intayna nolosha intii kale abidar noloshiisa kale u gelin waxay culammadu fawaa'id ka tilmaamaan wax dhowr iyo 20 mas'alo gaadhaya haddaynu si kooban in yar uga dul marro abidar qisadiisa uu imaamu muslim aroorinayo waxa ku soo arooray markay tolkii asharulxurumka istixlaal ku sameeyeen asharulxurumku waa bilay mamnuuc tahay in la dagaalamo shareecada islaamiga ah laakiin carabtii jaahiliyaddu markay doonaan inta iska bannaystaan bay odhan jireen bishan reer hebel inaynu isgallaabaynu u baahannahay ta dambaynu xaaraantinimaynoo xurmada ta dambaynu u raraye bisha tan aan bannaysanna bay odhan jireenoo dagaalka gallo dabeetana noocaasay ku wadeen dabeetana meeshana asharulxurumka lagu xalaalaystay ka guur buu yidhi wuu iskaga hijroodayba oo isaga iyo walaalkii unays iyo hooyadiiba markii hore waa kuwii ka tegey waxay masaladaasi ku tusaysaa bay leeyihiin dadka xaqa raadcaynaya meesha xumuhu ku badan yahay inay ka hijroodaan oo iskaga tagaan waxaa kaloo qisadiisa ay u daliishadaan in qofku markuu wax baxsinaya arrimihiisa inuu qarsoodiga ku dayo oo isagoo maka joogay anaanu cid badan wax weydiinaynin ee uu arrintiisa keligii rabay inuu ka gungaadho baxsiyo calina inaanu u sheeganin ilaa iyo uu ballan ka qaaday inuu arrimihiisa u qarinayo mooyaane waxaa kaloo qisadatan ay tilmaamaysaa bay yidhaahdaan qofka xaqa raadinaya in ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo isagoo aan nebi maxamedba soo gaadhin baa la waafajiyey bal horta inuu ilaahay isaga cibaadaysto salaada tukado أو salaada tukanayay waxaa qisada kale tilmaamaysaayoo kale qofku hadduu waaqaca uu la nool yahay khalfiya u leeyahay hadduu yaqaano dhaqanka iyo ummaddan uu la nool yahay thaqaafadooda iyo aqoontoodu inay wax u kordhinayso waxyaabaha qaarkood walaalkii markuu ninka soo dhegaystay wuxuu sheegay inuu gabyaa yahay waxaan uu sheegay inaanay gabayga la miisaan ahayn gabayga inaanu la mid ahayn wuxuu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo qisada tan ay u daliishadaan in la isla taliyaa inay fiican tahay unays markuu walaalkii la soo talinayay abidar wuxuu ku yidhi waa reer maki nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacnii way u cadhoodeen oo waa fogeeyeene is-ilaali kun calaa xidrin min ahli maka buu ku yidhi waxay kaloo qisada tani daliilu tahay bay yidhaahdeen arrimaha waaweyn qofka muslimka ahi inuu u baahan yahay wardhagood qura inuu ku filaado inaanay hayna inuu isagu laysa alkhabaru kalmucaayana inuu wax soo hubiyo
walaalkii baa u warramay warkii walaalkooyo qura kumuu kalsoonaanay wuxuu safarka u xidhxidhay inuu isagu xaqiiqada raadiyo oo uu soo arko waxyaabaha qisada tan ay u daliishadaan waxaa ka mid a qofka xaqa raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu u gargaaraa oo riwaayadda imaamu muslim waxa ay sheegaysaa inuu abeedar uu 30 habeen iyo maalmood uu joogay maka oo wax kaloo uu cuno aanu haysanin ilaa iyo inuu biyaha zamzamka cabbo mooyaane oo iyagoo qura ku noolaa ilaa uu leeyahay takasarat cukanu batni buu leeyahay duuduubka calooshaydu ayaa tiro batay waa burburtay buu leeyahay calooshii yani qofku markuu naaxo calooshu way laalaabantaa cukanka waxaa la yidhaahdaa waa caloosha laalaabkeeda wuxuu leeyahay saan u cabbayey baan ku naaxay oo calooshu laalaabatay karaamadaa ilaahay wuxuu ku siiyey subxaana wa tacaala xaqii uu raadinayey isagoo busaaradsan in ilaahay biyaha zamzamka uga dhigo wax fiican abi dhar qisadiisa tan yacni masaa'il aad u tiro badan oo 20 ku dhowaada ama 20 ka badan bay culammadu ka tilmaamaan laakiin wakhtigoo iska yar daraaddeed waxaan isku dayayaa bal qisada intii aan sii dul mari karo inaan dul maro abi dhar khandaq dagaalkii khandaqu markuu dhacay wakhtigaas ayuu madiine yimi intii ka horeysay yacni ghaswadii bader iyo uxud iyo kuwaasi muu imanin waxay ahayd wakhtigii muslimiinta iyaga la weerarayay khandaqa dee kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam al'aana hadda laga bilaabo annagunbaa weerari doono na soo weerari maayaan wakhtigaasi kadib baa reerkoodu yimi muddo yar buu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam laakiin muddadaa dambe uu nebiga la joogay wuxuu ahaa qof dadaal badan oo ay culammadu yidhaahdaan ahlu sufa kuwii masaajidka seexan jiray buu ku biiray oo guri kaleba muu samaysanin masaajidku deganaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u khidmayn jiray oo wuxuu ahaa arday dhab ah oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si dhaba ula noolaaday waxaa lagu tilmaamaa abidar aqoontu iyo tawxiidku inuu camal dhalaabaa muhima abidar tawxiidkiisii hore ee nebi maxamed hortii uu ilaahay rumeeyey wuxuu keensadayba dee inuu salaad tukado waa ka yidhi 3 sannadood baan tukan jiray isla markaa waxaynu leenahay abidar wakhtigii uu nebiga la noolaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof cibaado badan oo nebi maxamed ku xidhan oo ay culammadu yidhaahdaan wuxuu u dhigmayey mansilada cilmiga cabdilaahi bnu mascuud iyo ragga la midka ah ayuu u dhigmayey baa lagu tilmaamaa ilaa iyo ay ka wariyaan caliy bna abi aalib inuu yidhi abu darun wicaaun malii'un cilma uma wuki calayh abi dar waa weel cilmiga laga buuxiyey oo afka lagaga xidhay yacni afka lagaga xidhay dan waa masale aynu xagga dambe ka warrami doono abi dar wuxuu ahaa nimaan dunida hunguri badinay ka haynin xalaal miirada xoolo dhaqasho aan diyaar u ahayn adduunka haysta waxa uu cuno oo qura ka rumaysan mabda ahaan wixii cunnada dheerba inuu bixiyo waanay jeebkiisa u soo hoyanin walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaami tirmidi uu warinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamayo waxa uu nebigu ku sifaynayaa inuu yahay shibhu ciisa bnu maryam mid u eg ciise ina maryamo ahaa siduu adduunka uga zaahiday inuu abidarrina xagga zuhdiga uu kala mid yahay waana ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka isna imaamu tirmidi warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya ibnu maajana waa warinaya iyo kayrkood be wuxuu nebigu leeyahay maa adallat alkhadraa'u walaa aqallat alghabraa'u min dii lahjatin asdaqa min abi darrin riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihiin asdaqa walaa awfa min abi darrin riwaayaadka qaarkoodna waxay ku darayaan shibhu ciisa bni maryam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy samadu may hadhaynin dhullo korkiisa ma sido ku afkiisa ama carabkiisu uu ka run sheeg badan yahay oo ka oofin badan abidar buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cid ka run sheeg badan samana ma hadhaynin dhulna ma sido waxaa caan ahayd saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam dee bini aadan bay hayeen kala gedisan oo qofba miise gaara uu leeyahay wuxuu nebigu ku ammaano gaara waxyaabaha abidar nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa ka mid ah inuu ahaa qof saraaxo badan
run badan tawriye iyo hadalka warwareega aan ka aqoonin cidna aan ka haybaysan bay yidhaahdaan muranku ama arrinku hadduu khaliifa isku qabtaan iyo cid kala toona warkiisu uu toos un yahay si qura wax u sheega warkana runta ka yaqaan buu habaa lagu tilmaamaa waxay culammadu sheegaan marka ay ka warramayaan abidar iyo qaabkii nebigu uu u tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabintii waaweynaa ka mida buu ahaa weliba min asaabiqiin dadkii intii maka la isku dhibayay islaamay ayuu ka mid ahaa raggaa saabiqiinta la yaqaanaa waqtu ridda waa dadkii aan ridoobin waa dadkii ilaahay gomadooda islaamnimada uu ku sugay ee abibakar iyo cumar iyo dagaalka la dagaalgalay yacni wuxuu abidar ahaa nin faqiiha oo shareecada islaamigaa si fiican u yaqaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu tarbiyeynayey waxyaabaha uu ilaaliyay waxaa ka mid ah alfuruuq alfardiya waxay culamaai tarbiya yidhaahdaan bini aadamku ma sinna sida faraha maaha ee saasay u kala dheeryihiin gacanta farahu waa si u kala dhaadheeryihiin oo kale ayay u kala dhaadheeryihiin waxay ku kala gedisan yihiin qof walba kartida iyo caqliga iyo dhaqanka alla siiyey subxaana wa tacaala abuur ahaan qaabka loo abuuray walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa axaadiistiisa caanka ah mas'ala inuu nin weydiiyo uu si ugu jawaabo oo mid kale weydiiyo uu si sidaa ka gedisan ugu jawaabo oo mid kale weydiiyo uu sidaa si ka gedisan ugu jawaabo iyadoo loo eegayo qof walba meesha ama uu nuqsaanta ku leeyahay ama uu u baahan yahay inuu ka koro ama la rabo in laga tarbiyeeyo isaga laga kobciyo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markaas si hoos oo dhiibliya buu u yaqaanay waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah abudar nebigu calayhi salaatu wasalaam qaababku u tarbiyeeyey waxaa ka mid ah oo ay culimmadu soo arooriyaan marka aynu tilmaamno abidar xiddada ku jirta iyo nebigu siduu ula dhaqmay nin kulul buu ahaa baa la yidhaha abudar kulayl leh maalin maalmaha ka mid ah xadiidka bukhaari warinayo ayaa nin khudaamtii shaqaalihii ka mid ah oo addoon ah ayaa abidar caayi abidar baa wuxuu yidhi kii hooyada madoobi dhashayo buu ku yidhi dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam yabna sawdaa buu ku yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa abaadar acyartahu biummih war ninka ma hooyadii baad ku cayday buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu ku yidhi nin baad weli tahay jaahiliyadii wax kaga hadheen jaahiliyadani maxay dhaqan u lahayd waxay dhaqan u lahayd aabba isugu faan haddaanu annagu reer hebel nahay ama nimanka ilmo hebel la yidhaha faan aabbayaal iyo awowyaal tagoo xabaalaa ku jira in la soo qufoo la ysugu faano dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam abidar markii eraygaasi ka soo baxsaday wuxuu ku yidhi ma ninka kan ma hooyadii baad ku caayaysaa innaka mra'un fiika jaahiliya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum faman kaana akhuuhu taxta yadih falyuطcimhu mima yaأkul waliyulbisu mima yalbas ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم نبي عليه الصلاة والسلام حديثك كم بكلة لي أبي ذر حو نبي لي عليه الصلاة والسلام وروا ولا الذين وشقال يدين نقضي إلهي سبحانه وتعالى قعنتي نسوق لي إنك ولا الكي لا تشوقي قعنتي سوق ليو وروحا أدعون سوح لمدا وحكا عنسي waxaad huwantay wax la midana huwi waxaanay qaban karinna ha u dirina haddaa shaqada u dirteen ay ku adag tahayna war la qabta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan goormuu abu hurayra sheegay goormuu abidar dadka u sheegay abidar ayaa waxaa soo maray nin la yidhaha almacruur wakhtigii uu rabada meesha la yidhaahdo meeshuu ku dhiman doono markuu joogay abidar ayaa waxaa soo maray ninka kan dabeetana wuxuu soo maray abidar oo xulla sita isku joog xulladu yacni waa maro hoose iyo maro sare oo isku jooga abidar oo isku joog xidhan oo wiilkii shaqaalehee la joogayna isku jooggiisa la mida uu xidhan yahay dee sida caadadee dadka la yaqaana inta badan waxa weeyaan
ninku maryuhu xidhan yahay isagu ku xaragoonayo kuwa nafsu shaya inta badan inaanu u iibin shaqaalihiisa bay u badantay shaqaalihiisuna dhar kale una nooc kale inay qaataan laakiin laba qof oo dirays isu eg ama isku mid a qaata inta badan caadada dadku may ahayn abu hurayra abu dhar oo isaga iyo ninkii khaadimka u ahaa labadan xulle isu eg xidhan yihiin buu macruur ku yidhi waa sidee markaasuu xadiidkan sheegay abu dhar wuxuu leeyahay nin baan hooyadii ku caayay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaasuu igu yidhi kadib buu nebigu wuxuu yidhi war waa walaaladiin oo ilaahay gacantiina geliye waxaa cuntaana wax ka cunsiiya waxaa huwataana wax ka huwisiiya waxa uu tilmaamaya abu dhar cilmigan markuu helay siduu ugu dhaqmay inuu maantaa markii la yidhi xulladaad xidhantahay mid la mida u xidh kadib inuu u xidhnay oo sidii ugu dhaqmay yacni siduu markiiba isu beddelay ayuu xadiidka kani tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu saxaabadiisa yaqaanay qaarba tale nooca buu siiyey abidar talooyinku siiyey waxaa ka mid ah talada ah inaanu maamul qabanin nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama nin kulayle uu yahay aanu adkaysan karin dadka dhacdhaca ka dhace saadiqu lahja ah uu yahay tawriya iyo baabka aan gelaynin waxyaabahan dadku ay samsameeyaan akhtaada aan agtiisa lala iman karaynin wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidarow yaa abadar innaka daciif ay daciif can mukhaaladati innaas bay shuraaxda qaar yidhaahdaan waar abidarow adigu daciif baa tahay baa la yidhi dadka la dhaqankooda iyo dhexgalkooda iyo mushkiladda tan iyo maamulka rabshadiisa daciif baad adigu ka tahay wainahaa ammaana wainahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama markuu nebigu ku yidhi shaqo geli buu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo shaqooyinkana dadka u diraysa anna shaqada wax iga dir deetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidarow adigu daciif baa tahay maamulkuna waa ammaano ammaanaduna maalinta qiyaame waa khizyi waa dullinnimo iyo murugo qof xaqeeda ku qaaday oo wixii ay u baahnayd gutay mooyaane isku qaadin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ugu horrayn maamul in la qabtaa maqnam maahe waa mas-uuliya yacni maamul inaad qabataa maaha guul dheeraada iyo sharafti iyo maaha ee waxa weeyaan mas-uuliyad dheeraada iyo ibtilaa dheeraada imtixaan dheeraada inaad u baxday imtixaankaa dad yar baa ku guulaysta kuwa ku guulaysta waa calaa manaabirin min nuur alimaam alcaadil dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay maalinta qiyaame ee dadku cadceedda taagaya inuu isagu carshu raxmaanka harhsanayo ninka shaqadaa gudan kara laakiin dadka inta badani waxay ku dhacaan kuwa cagsigeeda oo ah kuwanuu nebigu leeyahay khizyun wa nadaama weeyaan abidar markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka riwaayaadka qaarkood wuxuu ku yidhi waxaan kula jecelahay waxaan naftayda la jecelay buu yidhi yaa abaa dar innii araaka daciifa wa innii uxibu laka maa uxibu linafsi riwaayadda imaamu muslim warinayo waxaan naftayda la jecelahay baan adigana kula jecelay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee laa ta'maranna cala اthnayni walaa tawalayanna maala yatiim laba madaxa u noqonin buu nebigu ku yidhi abaadar isaga waxaa lagala teliyey maaha maamul saroo tiro badan iyo maamul masjid iyo waxa war laba qof buu nebigu yidhi laba qof madaxa u noqonin waxaa kaloo lagula teliyey agoon xoolaheedna mas-uul ha ka noqonin agoonta xoolaheedu de in la ilaaliyo oo ilaalinta waxaa ka mid ah in loogu baac mushtareeyo loo koriyo aan waxba laga qaadan abudarra sidaynu arki doonno madhabku rumaysnaa bahashaba waa in la bixiyo in lacagtaba meel la dhigdhiga maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuu kala yaqaanay dabeetana abidar wuxuu kula teliyey inaanu maamul qabanin laba qofna ha noqotee isla markaana inaanu xoolo agoonna mas-uuliyaddeed qaadin casrigan aynu nool lahay dadku wuxuu haystaa maamulka inay tahay sharaf maahe waa imtixaan imtixaanka haddii ilaahay kaa nabadgeliyo laguma degdego waayo garan maysid inaad guulaysanayso walidaalik maadaama imtixaan tahay ayaa maamulka qaybo badan oo ka mid ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka dumarka waa laga reeba jihaadku waajib idinkuma aha baa la yidhi
madaxnimadana waa laga reebay ma aha manzilo laga soo reebay waxa weeyaan waa culays laga dulqaaday alxamdulillahi rabbil caalamiin inuu yiraahdo way qofkii ilaahay culays ka dulqaada abi dhar madhabkiisa maaligii wuxuu ahaa wuxuu rumaysnaa xoolaha wixii quudka iyo raashinka dheer ee dahab iyo fida ah inaan la kaydinin ee in lala baxo oo fuqarada iyo masaakiinta la siiyo abi dhar markaa waxaa dhacday wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee dadku inta badan ahlu sufa iyo noocaas baaba lahaayo cidhiidhi badan baa jira iyo dhaqaalo aad buu u yaraa nabiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa raggii waaweynaa wuxuu ku tarbiyeeyey inay fadaa'isha qaataan oo ah in zuhdiga iyo dhowrsanaanta iyo taqashufku inuu fiican yahay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam abi dhar buu maalin soo kaxeeyey dabeetana wuxuu ku yidhi abi dharow bal buurta uxud ma aragtaa markaasaa waxaa naftayda ku soo dhacday buu yidhi inuu nebigu wax ii diri doono dabeetana wuxuu egaa cadceedda iyo inta bal ka harhsan gabaldhaceedii haa baan idhi buu yidhi dabeetana nebigu wuxuu yidhi uxud in leegoo dahaba hadday gacantayda ku jirto ma jecli in gabalku igu dumo ama habeen saddexaad inay ii hoyato ilaa iyo diinaar xadiidka abu hurayra uu warinayo ilaa diinaar aan u dhigay dayn qof igu leh mooyaane xadiidka abi dar warinayana wuxuu ku yidhi ilaa 3 diinaar mooyaane diinaar aan dayn iskaga bixinayo iyo mid aan reerka u dhigay iyo mid aan miskiin ku furanayo ama asiir lagu furanayo mooyaane inuu gurigayga u hoydo ma jecli qaabkaasuu nebigu u tarbiyey abu dhar iyo raggii la midka ahaa inaanay adduun dhaqashadeed waxba ku falin aakhiro inay dhaqdaan oo waxa weyn uu noqdo laakiin nebigu markii uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ee cahdiyadii dambe ee cumar iyo cuhmaan iyo wakhtiyadiisii islaamnimadii baa ballaadhatay dhul badan baa la furtay dhaqaalo badan baa dowladdii islaamiga soo galay dhul badan oo dhul beereed iyo xoolo iyo kunuusa bay heleen dowlado dhan oo waaweyn oo jiray bay qabsadeen dabeetana dhaqaalihii dowladdii islaamiga ahayd aad buu isu beddelay dadkii markaa faqrigii tirada badnaa iyo taqashufkii tirada badnaa wuu ka baxay oo waxaa loo baxay nooc la nicmaystay oo badhaadho iyo barwaaqo lagu jiro abi dhar laakiin way u cuntami weyn waxaa ugu muuqatay in sunnadii nebi maxamed dadkan ay khilaafeen oo xoolo dhaqasho iyo baabkan loo dhaqaaqay abi dhar markaa madhabkiisu wuxuu ahaa u arkayey dahabka iyo fidada in la kaydsadaa inaanay bannaanayn dabeetana fagaarayaal badan buu wuxuu ka akhriyey آيات القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آيات إلهي إلهي كوى كيدية ذهب كي فضة يعني إلهي درتي بحنين ugu bushaareeya cadaab kulul yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam maalintaa dahabadan iyo waxaan intaa lagu kulayliyo naarta jahannamo dabeetana jidhkooda lagu kaaweedeeyo iyo dhabarkooda iyo wejiyada lagaga kaaweedeeyo iyadoo la leeyahay waa kaa wixii aa kaydsateen ee dhadhamiya cadaabkaasi iyadoo lagu leeyahay faduuquu maa kuntum taknizuun abadar wuxuu u arkayay markaas waa kadee alaxnaf ibnu qays xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay axnaf ibnu qays waa nin qabiil madax ka ahaa oo cahdigii nebiga noolaa calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu ay yidhaahdaan kaba mid ah raggii nebiga arkay cahdigii saxaabada yimi magaalada madiina marka waa nin mukhadrama wuxuu yidhi waxaan soo galay masjidu madiina oo quraysh niman ah ay meel fadhiyaan oo ku urursan yihiin dabeetana nin baa soo galay buu yidhi dabeetana intuu isdul taagay ayuu goodiyey buu yidhi uu naar iyo ugu goodinayo dabeetana aayadda qur-aana buu ku akhriyey cidii uma jawaabina waa la wada foorarsaday buu yidhi dabeetana intuu iska dhaafay ayuu halkaa saariya kaabad masaajidka ka mida iska fadhiistay ninkii baan ka daba tegey buu yidhi waan kumaadahay waa abaadar buu noqday buu yidhi dabeetana waxaan idhi maxaa ninka markuu sifaynayo wuxuu leeyahay nin baa soo galay maradiisa ay khushuuna maradiisa adadkayg uu ka muuqdo oo jidhkiisa adayg uu ka muuqdo
يعني نين بشارة كم مغطى أنا هاي ننت نعميستي أو شركيسي مراديسي وحي سبا نين باهي كم مغطى أبا صاق علي بيري دبت أنتو آيات كأكو آخري مركان ولا صفر استو سؤال ويديي دبت أنا وحي يقول جواب بيري نمك كان أدون كودنا الدوني مايو ديننا ويديننا بما يبيري نبي محمد سيدو يجيت كان حانا يا أبو لي أبي ذر أبي ذر مسائل كانوا واد كابا وحي كان سطي وقت قد دونيدو أي برارستين برواقستين صحابدو أيو شام تجي دبتنا يسوق شام شوقه أيو مسائل كان آدو إثارية وكعية رأيي يسيبو آدو موتشية دبتنا وفقردي رأيي يسيبا بيلدعين كدبنا معاوية كسو اشتكودي معاوية مركا برصاب أما والقي قبل كاسية بسو اشتكودي عثمان بن عفان بوراق صدر يولي هيا بذر ضدكي بوكعين أيام الشراء نبتاسو نقوضة دبتنا عثمان با وراق قرية بذر ولي يسكا صدر أبي ذر با صادري ومقالة مكة يمي مقالة مدينة يمي مقالة مدينة مركيو يمينة أبي ذر عثمان با نقاشي دبتنا أبي ذر رأيي يسيبو استاقي وعضيستي عثمان بن عفان وحكو يري أنا وحي يقول صابصا ويلي يعني أنا نقول تقشف سمايا عينك لكن تقشف كانت ربطابولة وفضيلة ضدكو دم واجب لك كما وطنيك كرو رعية سيدا سكوما معمولة يبولي يهدي هذا كوكو أدكتي مسألة التاني هل اعتزلت ما أدبا ضدك اسكيتجي واسكيتجي يا أبو الربي ذا دبتنا وحكو يري ميل فوق هتجي ويا النبي عليه الصلاة والسلام سحابتي سيوحوا كنا هي إني ريرمية النقضان وده جماعة إني كفوا قادان ومن بدأ جفا ريرمية مدينة يدبوا قشوا ده تنوح كويري ما لا جماعة كسو قاري كرتتك تولو إن كان يرير مدينة كوريك سن تولو الربض الله يراهدو أيو أبي ذر مركا وبحي أو كبحي مقالة مدينة رأيي كان أبي ذر لأن مركا لقى الصحابة ده حين أورنكرنا صحابة ده انتو دي بدنيدا ما كبار الصحابة ويخلاف صناعي waxay u arkayeen maalka qofka muslimka waxa lagu leeyahay inay zakatay hadduu zakada bixiyo inaan waladiina yaknizuna dhahaba soo galaynin waxay kale u arkayeen haddii ay mas'ala caam dhacdo oo baahiyo caam ay timaado imaamka muslimkii wixii looga baahan yahay xoolaha muslimiinta inuu ka soo qaadi karayo laakiin haddii aanay jirin dhib caam oo loo baahan yahay waxaasi qofka muslimka maalkiisu inuu masuun noqdo mid loo ilaaliyo inuu noqdo mas'alatul kanzina inaanu soo galaynin abi darse wuxuu arkayay inay masaa'ilkani tahay qaabkii nabi maxamed u noolaa iyo saxaabadiisii weynaa iyo raggii uu soo gaaray sidii loo noolaa si aan ahayn inay sidani tahay adduunyo jacayl dabeetana masalada xoog buu radiyay waxay culimadu yidhaahdaan masaladan waxa ka muuqanaysa kow siday saxaabadu aaraadooda isu ixtiraamayeen وحتى الدولة الإسلامية أبي ذر رغم قصب رأي إنه كتنازله تامعنا هذا وحويان قفك مسلم كاي يا كتابك يا السنة قرنية يا اجتهادية مسألة اجتهادية سوء أركا رأيك يسوي كتغو إن لغو عيبين إن لغو نعيب سنة إن لغو نماغن وهلك وقت كان عصرك المددتكو إنه كد داليا أما أنا الرأي جيجا بكاملها أقبل هدي كلام مبتدع أما كافر أما وحون بقول ومنيا دات كايا الراعي ويدو وحكلون بعد ولاقتين لتلمامو صحابة وحي تلمام يساين أي مسألة حرية الرأي بشرط إنه نكو لكن قرنا كتاب يسنة اجتهادي قاينا يقبل كريه يقول الله أوران كرو مسألة يقول كودا waxay u arkayeen banooc min al-ijmaac inay intoodii ugu badnayd ay xaqan ku tagsanayeen haddana waxay ixtiraameen inuu ra'yigiisa lahaan karo ilaa ay masaladu markay soo gaadhay in bulshada ay khalkhal ku ridi karto ay leeyeen Uthman wuxuu ka codsaday inuu gaar isaga baxo inuu masaladiisa ka tanaasulo cidina ma weydiinin laakiin waxa laga codsaday inuu ka tanaasulo inuu i'tizaal inuu dadka sameeyo inuu dadkii mar haday masalada ku heshin kari waayeen inuu isagu rabbiga caabudo gaar iska tago shiicada iyo dadyaga qaarkood iyo taariikhyahanada qaarkood masalada tan si qaldan oo tiro badan loo soo dalishada
laakiin abi dar waxay yidhaahdaan bixurriyatii buu meeshaasi ku qabtay xataa culamada taarikh qaar ka midi waxay soo naqliyaan waqtulfitna ayaa waxaa u yimi qolo reer kuufa oo raba cuhmaan in lagu kacad iyo wixii wada dabeetana wuxuu ku yidhi aniga nebi moxamed siduu igaga tegey baan ahaanaya siduu kaga tegay waa maxay waxaa jira xadiidu imaam alalbaniy fii kitaabi sunna uu ku odhanayo isnaadkiisu waa saxiix wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ii yimi anigoo masaajidka jooga dabeetana adinkuu igu dhuftay dabeetana wuxuu igu yidhi waa maxay waxaan ku arkaa inaad masaajidka dhex hurudee markaasaa waxaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ishaa iga qaalib noqotay yacnii waan lulmooday riwaayaad kalena waxaabay sheegayaan oo dee ma guri kalaan leeyahay soo halkan uun ma seexda buu yidhi markii uu sidaas sameeyey ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnac idaa ukhrijta minhu oo haddii lagaa saaro maxaad yeeli doontaa markaasu wuxuu yidhi de xaggaa iyo shaam baan iska qaban doonaa iyadaa ardayga laysku soo xashrinayo caynkaa iyo caynkaasuu sheegay ardi almuqadasa ku taalla markaasuu wuxuu nebigu yidhi oo haddii iyadana lagaa saare maxaad yeeli doontaa markaasuu wuxuu yidhi dee seeftaydaan qaadana waxbaan iska rabi haddii madiinana layga saaro shaamna layga saaro maxaa hadhay seeftaan qaadana waxbaan iska dhicin buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma kuu sheegaa wax kaaga toosnaan badan masaladaa ma kuu sheegaa ayuu laba goor igu celiyey buu yidhi khayrun min dalika waaqraba rushda ma kuu sheegaa markaasaan idhi haa tasmac wa tutiic wa tusaaq kayfa saaquuka buu ku yidhi nebigu waad maqli oo waad adeeci oo halkay kuu kaxeeyaan unbaad u raaci doontaa abidarow dagaalma jira baa la leeyahay saxaabada lama dagaalamaysid sidaa yeel abidar fitankii kama qayb gelin akhiiran abidar wuxuu qabtay rabida wakhtigii waa dhammaadaan u malaynaya mar hadduu sheekhani soo fadhiistaye waxaan ku gebagabaynaynaa abidar keligii isagoo ah oo xaaskiisii la joogo riwaayaadka taarikhda waxay sheegayaan waxoogaa hala ah iyo nin khaadima u shaqeeya inuu ku daray cuhmaan la yidhi halahaagana maal khaadimkaasina ha kuu raaco adiguna halkaagaa iskaga cibaadayso meeshaadaa iska joog tuuladiisi yarayd isagoo iska joogaba ay tiisii timi waa geeriyooday halkii baa naftu kaga baxday gabadhii cid la maydha ama la aastay weyday riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan inuu ku yidhi waddadaa idhig nebiga ay sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid culammada badh badan ee ay daciifinayaan laakiin riwaayaad ka mida ibnu kathiir uu isagu xasan ku tilmaamayo waa kii ahaa yamshi waxdah wayamuutu waxdah wayubcahu waxdah xadiidkii tilmaamayey cabdillaahi ibnu mascuud iyo koox la socota oo safara oo ciraaq ka yimi oo xagga u sii socda baa soo maray gabadhii waxaa tustay waxay tidhi nin baa halkan ku dhintay way u yimaadeen waa kuma waa abaadar baa la yidhi waa markaas buu ibnu mascuud xadiidkan sanadkiisa laga warramayo uu sheegaya calaa kulli xaal ibnu mascuud iyo saxaabadaasaa maydhay aasay abidar raxmat ullaahi calayh halkaasuu ku geeriyooday صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزا الله خيرا شيخنا شيخ مصطفى حاج إسماعيل محاضرة آدك وناكسن أو نوسو جيديي إننا وحلانها الله نقدقو دادك كوانا قاته آخر دودا يا الدنيا دودنا أيو افتيمسه شيخنا وحلانها الله سبحانه وتبارك وتعالى ميزان كيسا حسناتك هاوسارو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا ليال سؤاله فربضان أيانا سو قاري لكن سؤاله وحيو بدنيهين سؤاله عن وحرير للهين موضوع شيخ وكهد ليي إلا هل سؤال مويانه مكا سؤال شاس أيان كسو ختم الدونا بإذن الله الكريم سؤال شنا وحي لهذا الشيخ هدان دون إنه إن الصحابة الرسول كأن كدينه أما أن اسكو شبهنه محانو السمينينا أما محانو يلينا qofka aan xiisayn ama aan qiimayn saxaabadana maxaad ugu naseexayn lahayd بسم الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام waxay caan ku ahaayeen waxa weeyaan waxyigii samada ka yimi ayaa la weynaa waxaanay u arkayeen waxyigaasi samada ka yimi ee rabbigood uu soo diray inuu noloshooda hagayo
وحلوينا مركا الله سبحانه وتعالى تلدو بحيي dadka maanta jooga ama dad yow badan waxa laga yaabaa iyadoo la leeyay ilaahay baa yiri oo masaladu rabbi inuu yiri ay caddahay inuu balhaayaan si kala ku eegnaya aqliga iyo arrimo kale iyo idan waa aqli iyo rabbi la isdhinac dhigayo saxaabadu waxay dadka kale kaga gadisanay waxa weeyaan waxay tacdiimin jireen waxa agtooda ku weyna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii waxyiye uu soo diray ama quraan ha ahaado ama nabiga calayhi salaatu wasalaam sunno loo soo diray ha ahaade qofka raba inuu dariiqoodii maraana waa inuu qaataa dariiqa inay la weynaadaan rabbigii wixii ka yimi uu arko in wax wada saxa oo aan qalad ku jirin oo adduuniya aakhiraba lagu liibaanayo inuu yahay haddaad qaadato wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu soo diray saxaabadu in la weyneeyo diintay ka mid waayo waa kuwii diintayna soo gaarsiiyey inagu nebi maxamed maynaan rag calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed iyagu tarbiyeeyey oo diinta u sheegay iyaguna dhaqan iyo risaaladii iyo sideeda ah labadaba wayna soo gaarsiiyeen oo saxaabadu dhaqankoodu hadday qaldamaan ilaahay baa la hadlayo lahaa waxaa samayseen waa qalad markay saxmaan ilaahay baa la hadlayo lahaa waxaa samayseen sax weeyaan waa dad dhaqankooda rabbi uu hagayay dagaalay galeen oo la yidhi waa qaldanaydeen waxbay sameeyeen waxa la yidhi sax baa ahaydeen nin iyo gabadhii baa war ku wada hadlay oo ilaahay baa samada ka soo warramay oo la leeyahay qad samica allahu qawla allatii tashtaki ilaahay uu sheegayo qawla allatii tujaadiluka fii zawjiha idan saxaabada dhaqankoodu waxay ahaayeen min khilaalihim kuwii laynaga saxay idan dhaqankooda tan quraan iyo sunnadu ku soo arooree diintii saxaabadu markaa waa dad qof kasta oo muslima agtooda ay ku weyn yihiin waa bashar min albashar ka mid ah laakiin waa bashar uu nebi maxamed rabbeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyaguna islaamnimada ku dhaqmay ilaahina subxaanahu wa tacaala waxyiga ku hagay waxa saxa iyo waxa qaladka mar waa dad mudan in lagu daydo ahna dariiqa inuu marayno nebi maxamed calayhi